Somaliland xaqeeda qof uga tanaasuli mayso waana ku waajib inay qarannimadeeda xuduudaha Afrika la wata oo ahaado mid sugan haddii ay la noqotay inay Somaliland fududaha in la weeraraa waa in abaalkii laga waraabiyaa lana ogolaan intaa ka inaan la soo maamulka Puntland oo aad ugu fadlan dheer inuu Somaliland dalbalaarsi dhul kaga qaato habbeelaysan ah waxay ila tahay waa isranahay Puntland inay Somaliland dhul ka qaadi kartay yan kale waa isranahay nin wal oo Somaliland aqoonsan xuduudaheeda iyo qarannimadeeda nabad baan u fidirinaa wixii naga dhaxeeyana hadal baan ku dhameynaynaa nin wal oo Somaliland inuu burburiyo doonayo ama xadalkeeda inuu kala jarjar doonayo dagaal baan naga dhaxeeyay maanta waxa dhacday in Somaliland horumarka ay sameysay ay yeelatay cadow badan oo kala ujeedooyina laakiin ku midaysan inaanay Somaliland burburiyaan mid badan u kala yahayba ayaa soo bahaystay dalkana waxa la geliyay xaalad dagaal oo ku jira sidaa darteed maanta mudnaantu waxay noqonaysaa in loo midoobo difaaca qaranka oo qarankaas oo kale qaranka Somaliland waa kii xuduudihiisa ay ka tageen sameeyeen isticmaalkii Afrika oo dhan joogay xuduudihii uu ka tagay oo aynu kala simanahay dhammaan Afrika 54 dawladeed ee la aqoonsan yahay ayay Soomaaliya la xuquuq tahay waayo xuduudeena waxa qeexaya si cad axdiga midowga Afrika kaasoo ayaguna ixtiraamaan oo ogoliyeen sharciyan wixii kaasi ogol yahay jimcada Qur'aanka dhaxaysa oo la mid ah igad oo afarax ka mid ah Afrika ay iyaduna aanay dhaafi karin wixii axdiga Afrika oo dhan ku heshiisay suurtagal ma aha in Afrika oo dhan ku dhaqanto xadkii ka tagay isticmaalku Somalilandna la waa loo diidaya ninka taa ku hamoonayana uu riyoonayaa Somaliland xaqeeda qofna uga tanaasuli mayso waana ku waajib inay qarannimadeeda xuduudaha Afrika la wata oo ahaado mid sugan Somaliland waxaan u kala qaadaynaa dhibaatooyinka badan ee jira ee xaaladaha dagaalku la soo weeraray ay keeni karaan qaar gudaheena oo Somaliland gudaheeda ah iyo kuwa cadawga soo duulay si aynu cadawga isaga dhicino una helo qaranka dhameystiran dhaqaalaha laga hadlayo waxa ka soo baxana loo hirgelin karo kuwa caafimaadka la soo hirgelin karo daraad khamiistii waxa iyaguna u fadhiyo shirkan oo kala qolada xafiiska baarista arrimaha beeraha horumarinta beeraha oo khubaro badan oo aqoon-yahan oo aan maray doctoraa wadayihiin oo beeraha ay ka shaqeynayeen muddo oo iyaguna soo dhigay sidii beeraheena iyo miiraheena iyo looga faa'iideysan lahaa wax soo rogan oo qurux badan si barnaamijyaas u hirgalaan waa horta qaranka Soomaaliland suga ka labaad ee cadawga soo fiirinaya haddii ay la noqotay inay Somaliland fududaha in la weeraraa waa in abaalkii laga waraabiyaa lana ogolaan intaa ka inaan la soo kaas waxaynu ku helaynaa marka aynu inagu xasaradaha gudaheena ka waantowno waxyaalaha ku dhacaan waxaanu ognahay waxa inagu soo noqnoqda muddada imika da'yar jirtay 32 sano Somaliland jirtay dagaalo iyo murano madhalaysa oo dhul ku saabsan oo dagaalo iyo dhimasho iyo dhaawac iyo waqti iyo hadimo keena aan loo baahnayn lagana maarmi karaayay waxaynu ku aragnahay maalin walba balood la dago 10 mitir ama 20 mitir dhula inta naga dhinto qorayso qaato magaalo kasta dhul ilaahay oo distoorkeen waa dhulka waa la wada leeyahay dawladda dhaxana ka mas'uulahay kasako in la isku laayay barkeed cabirkeedu yahay 10 mitir oo dad ku dhinto oo colaad ka dhacaan in la garan waayo waxa qof meel maraya loo dilay oo la oranayo waa aar oo 10 sano ka hor ayaa ninkaasi ama ciidaas reekaan naga dishay oo kii wax dilay gacan ku leeyahay maaha waxa la oranayaa xaafadda ninka ugu mudan waa kuma caalim aqoon-yahan tala qabeen entrepreneur ama baaxmister ayaa raadsanay waa cudur Soomaali oo dhammaan la qabto
inoo gaar maaha laakiin inagu inaynu ka talaabo horeyno oo aynu taa ka waantayno inaynu xasilino wey haddana xurgufaha dhexdeena ah Soomaaliland u dhamaan sheegaya xadkeeda Soomaaliland way arag beeruud inay xaliso in badan bay dhexdeena dagaal isku ka dhacay in badan baa meel isku qabsaday la kala furdaamiyay maadaama aynu khibradda u leedahay waa ku filanahay waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheena macadowga badan ee soo tashaday gacan nagula jira oo ku dagalayahay hadday taas jirto waanu ka midna gacanta cadowga inuu ka saaro dabeetana Soomaaliland wixii iyadu sida waxa la jirtay wada xiriirto shirka inta ku darsanaya waa inta si gaara cadowyada badan ee Soomaaliland waxaan u soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aad ugu fadlan dheer inuu Soomaaliland dalbalaarsi dhulka ka qaato habbeelaysan ah waxay ila tahay waa isranahay Puntland inay Soomaaliland dhulka qaadi kartay iyan kale waa isranahay waxba taay markaa u dhaafi maayo waxa la mid ah xildhibaanada qaar Kenya oo Kenya xildhibaan u ah siyaasiya oo wax la qaybsan 80 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga haddana dab ka dhex shidaya Somaliland gobol kamida ama degmo kamida aqliga caynkaasi ku aanu aqbali karno kana ergeynina kana warwareegana maahe waxaanu leeyahay waa cadow Somaliland halka kaga soo duulay dawladda Kenya oo xiriir wanaagsan leeyahay halka uu jooga safaaradii safiir buu xawaa dawladda qura soo magacawday oo hadda baarlamaanka soo marayo oo ay ka joogaan in ku dhow 8,000 oo shaqaale oo dadka Somaliland Nairobi joogaan ilaa ciida ka badan yihiin wanaagii walaaltina uga dhaxayso waxaan u tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubniina baarlamaanka iyo xilal qaran haya ay Somaliland dab ka dhex shidaan midaan aqbali karno waxa la mid ah dawladaha jaarka ah to walba oo dadkeedu soo fargaliyo Somaliland halka waxaan ku soo ururinayaa waxaynu helaynaa waxaanu hore maro markaynu labada qodob ee gudaheena iyo cadawga iska daafacno waxaan ku aad iyo aad u hambaleynayaa dhammaan shacabka Somaliland ee aan xukuumadda xilwayn gudaha iyo dibadda ha joogeen miyi iyo magaalaha joogeen sida wadanimada ah ee nafurida ah ee naf iyo maal ciidamada qaranka u garab taagan yihiin waan ku hambaleynayaa waana ta Soomaaliland ku soo calaamaashay qaranka ku dhisto waa taynu dhaqaalaha loo fadhiyo ku heli karno waa taynu caafimaad ku heli karno waa taynu warshado ku dhisan karno waa taynu shaqaalaanta kaga bixi karno waxaan taa ku darayaa waxaan iyagana aad u hambaleynayaa ciidamada difaaca madaniga ah ama civil defense ee iskood si xilqaamay hubkooda qaatay ee iyaga oo mutadawiciina furida difaacaya deegaamada cadowga u soo goodiyayo ee dhammaan xuduudaha ku gudban gobolada ka fog dagaalada waxaa ku waajiba in ciidamada civil defense-ka ama ciidamada difaaca bulshooyinkooda ee xilqaamay ay taageero iyo walaaltinimo iyo isgarab taag u muujiyaan qodobka ugu dambeeyay arrinta ka tagay waxa weeye nin wal oo Somaliland aqoonsan xuduudaha iyo qarnimadeeda nabad baan u fidinaynaa wixii naga dhaxeeyana hadal baan ku dhameynaynaa nin wal oo Somaliland inuu burburiyo doonaya ama xadalkeeda inuu kala jarjar doonayo dagaal baan naga dhaxeeyay inta taasan kaga tagay qodobka ugu dambeeya waxa weeye siyaasadda Somaliland siyaasadda